بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والله إسلام كامل والباد جوكتان ويد السلامية. انت كتب ما أنت درسي كان وحن قلت لك عن موضوع غدغي 5 دقيقة هر ساد جنة وهشي 5 دقيقة هر ساد جنة وهشي jannadu ilaahay ka sheekeeyay rasuulka noo sifeeyay oo noo tilmaamay asbaabta jannada lagu galo way badan tahay way fara badan tahay waxaynu soo qaadanaynaa kuwooda ugu fudud waxaan ka hadli doonaa 3 xadiis oo ah sababooyinka iyo waxyaalaha jannada lagu galo kuna fudud qof yahow inaad adiga jannada ku gashid hadii aad adigu sameeynayna sida walaalaha ay u sameeyaan la wadaag walaalaha fiidiyowga la wadaag midda koowaad aan ku soo bandhigayo waxa weeye oo hadii aad sameeysid aad ka mid noqonaysid dadka ahlul jannaha oo ilaahay uu wanaajiyo oo ilaahay sharfay waxaan ku soo gaabsanaynaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam oo yiri qofkii gala gurigiisa kuna gala markuu gurigiisa galaya salaam ku gala oo asagoo gurigiisa jooga ku jira ehelkiisa dhex jooga dhinta ilaahay baa wuxuu damaanad qaaday qofkaas ahlul janna inuu yahay. الله أكبر الله أكبر قفك نوعاسا وسوى فاميلي جيسا أهل كيسا قري جيسا كتشرا دينتا إلها يا وحو ضمانت قاضي إنه قفك جنة جينيو إلهي سبحانه وتعالى وحو البواء وذا نبي محمد وحا كسبناتي صلوات الله وسلامه عليه إنه يري رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله قفك غري سكوك السلام قفك ضمانه الله ايو كجرا hadii uu dhintana ahlul janna ayu kamid yahay walaal ma ismu idiisay maxaa markaad gurigaaga hor istaagtay salaanta ku ilowsiya maxaad u kari weyday assalaamu alaykum markaad gurigaaga iyo ehelkaaga aad dhaxgalaysid maanta laga bilaabo walaal kamid noqo dadka ilaahay jannada wanaagsan u ballan qaaday mid kamid ah noqo mid kamida dadka jannada galaya mid kamida noqo adduunka waxa ka saaray qof janna inta balaceedu la egyahay makaan iyo boos uu ka gala ka waayay wa'iyad billah mid labaad aan ku daabsanayo waxa weeye nabi maxamed sallallahu wa salaamu alayhi an abi umama tasuka warinaya nabi wuxuu yiri man qaraa ayatal kursi fi dubur kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul al-jannah إلا أن يموت قفك مركا وصلاة تكدو صلاة قداش هذا أخريا آية الكرسي آية وناكسن أو شرفا قفك أخريا جنة وحا كحية كلية إن أولنتو جنة وحا كحية كلية إن أولنتو ولا الكد دال إنو عربك ذكرك ألا أكبين يهي صحابي يا رسولك ويمي إيه دردارا سؤال بويدي وحيري ودو وناكسن تهي أدون وناكسن نباتهي إنت عربك وذكري مكبين يهي مدى سدحاد وحوي دعاء ليره سيد الاستغفار دعاء النبي وحو شاقي قفك أخريا صبح دي وإصابة عن قلبيسا إنت كهريسا إنت إنو أهل الجنة يهي قفك قلبت أخريا إنت صبح ذا لقى قاري إنت ودحيسا إنتنا قفك إنو أهل الجنة يهي وقت ولا بدأ سوكك وبين يهي صباح إلى قلب إلى صباح ذا قاري لبدا جير حديئة آخر سيد أضو حلقا كتشلنا آدمتين أهل الجنة تهي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحي الدعاء سيد الاستغفار ليرهده وحوي إن الدهدين اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بخاري أي حديثك ورينيا قفك إلى هذا حديثك صبح دي أنت قلبت لك قارينا أنت أهل الجنة وهي إله بالضمانة سأيو كشرا إله بصعنا الله سبحانه وتعالى وحو البوء وذا الله وهو على كل شيء قدير حاكو دي
inaad ka mid noqotid dadka uu carabkooda dikriga alle uu ka qoyan yahay maxaa walaal kuu diidaya gurigaaga markaa galaysid inaad salaan ku gashid maxaa kuu diidaya marka salaada aad tukatid inaad aayatul kursi aayada wanaagsan oo ka mancinaysa inuu kuu soo dhawaado wax walbo dhib leh wax walbo jin ah wax walbo insi iyo dhibaato wata kuu soo dhawaan maayaan ilaahay damaanadiisa ayaad ku jiraysaa walaal maanta ka bilow maanta kadib ka mid noqo dadka uu ilaahay u ballan qaaday waxaysan ili arag dhagna maqlin qalbi bini aadana aan weligiis ku soo dhicin walaal khayrka saa naftaadu la jeceshahay walaalaha ula jeclow kilibkan la wadaag walaalaha waxa macquul ah in badan aan arrintan ku baraarugsanayn inay ka faa'iideystaan qofka dadka khayrka u tilmaama waa sida inuu khayrka isagu sameeyo oo kale assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh